warar hoose oo ay heshay idaacaddan kulmiye ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallado la doonayo in lagu sii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagneed qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13 bishan aynu ku guda jirno kadib amar ay bixisay dowladda sida la sheegay. Wadahadallada ayaa kuwa u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaar oo kuwa u doonaya in Robow la sii daayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid kadib markii uusan buuxin shuruudaha lala galay markii hore. Muddooyinka dambe ayaa magaalada Muqdisho kulmo ku yeelanaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwa oo ka arrinsanayay sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. ilo ku dhow Mukhtaar Robow isla markaana la shaqeynayay xilliga ololaha doorashada uu ka waday magaalada Baydhabo ayaa u sheegay keenan in laga yaabo Robow in la sii daayo saacadaha soo socda. mahadsanid Axmed Maxamed Ibraahim. warar hoose oo ay heshay idaacaddan kulmiye ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallado la doonayo in lagu sii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagneed qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13 bishan aynu ku guda jirno kadib amar ay bixisay dowladda sida la sheegay. Wadahadallada ayaa kuwa u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaar oo kuwa u doonaya in Robow la sii daayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid kadib markii uusan buuxin shuruudaha lala galay markii hore. Muddooyinka dambe ayaa magaalada Muqdisho kulmo ku yeelanaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwa oo ka arrinsanayay sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. ilo ku dhow Mukhtaar Robow isla markaana la shaqeynayay xilliga ololaha doorashada uu ka waday magaalada Baydhabo ayaa u sheegay keenan in laga yaabo Robow in la sii daayo saacadaha soo socda. mahadsanid Axmed Maxamed Ibraahim. warar hoose oo ay heshay idaacaddan kulmiye ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallado la doonayo in lagu sii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagneed qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13 bishan aynu ku guda jirno kadib amar ay bixisay dowladda sida la sheegay. Wadahadallada ayaa kuwa u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaar oo kuwa u doonaya in Robow la sii daayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid kadib markii uusan buuxin shuruudaha lala galay markii hore. Muddooyinka dambe ayaa magaalada Muqdisho kulmo ku yeelanaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwa oo ka arrinsanayay sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. ilo ku dhow Mukhtaar Robow isla markaana la shaqeynayay xilliga ololaha doorashada uu ka waday magaalada Baydhabo ayaa u sheegay keenan in laga yaabo Robow in la sii daayo saacadaha soo socda. mahadsanid Axmed Maxamed Ibraahim. warar hoose oo ay heshay idaacaddan kulmiye ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallado la doonayo in lagu sii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagneed qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13 bishan aynu ku guda jirno kadib amar ay bixisay dowladda sida la sheegay. Wadahadallada ayaa kuwa u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaar oo kuwa u doonaya in Robow la sii daayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid kadib markii uusan buuxin shuruudaha lala galay markii hore. Muddooyinka dambe ayaa magaalada Muqdisho kulmo ku yeelanaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwa oo ka arrinsanayay sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. ilo ku dhow Mukhtaar Robow isla markaana la shaqeynayay xilliga ololaha doorashada uu ka waday magaalada Baydhabo ayaa u sheegay keenan in laga yaabo Robow in la sii daayo saacadaha soo socda. mahadsanid Axmed Maxamed Ibraahim. warar hoose oo ay heshay idaacaddan kulmiye ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallado la doonayo in lagu sii daayo Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagneed qabashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur ayaa dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay 13 bishan aynu ku guda jirno kadib amar ay bixisay dowladda sida la sheegay. Wadahadallada ayaa kuwa u dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta qaar oo kuwa u doonaya in Robow la sii daayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Robow uu yimid kadib markii uusan buuxin shuruudaha lala galay markii hore. Muddooyinka dambe ayaa magaalada Muqdisho kulmo ku yeelanaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwa oo ka arrinsanayay sii deynta Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. ilo ku dhow Mukhtaar Robow isla markaana la shaqeynayay xilliga ololaha doorashada uu ka waday magaalada Baydhabo ayaa u sheegay keenan in laga yaabo Robow in la sii daayo saacadaha soo socda. mahadsanid Axmed.